sanadkii hore waxaad baarlamaanka Afrika oo aad xubin ka tahay Soomaaliya ku matasho ka sheegtay in Imaaraadku uu dhibaato ku hayo Afrika oo ay tahay in laga saaro qaaradda Afrika guud ahaan waliba si adag ayaad uga hadashay arrintan maxaad aragtay Professor Cabdi Ismaaciil oo kugu dhaliyay in sida arrinta Imaaraadka aad fagaraha ugu soo bandhigto horta waxa weeyaan baarlamaanka Afrika waxa weeyaan meel fagaara ah oo dood xalaali wax ka tari karto ayaan qabaa inay tahay inta la iska tago la iska seexdo ama baarlamaanka Afrika noqdo ama ka Yurub ha noqdo ama ka Asia ha noqdo wax weyn oo soo kordhineen ma jiro marka dood ba meesha ka socota doodana inta oo cilmiyeysid had tustid Afrikaankii kale waxa ka maqan ay li xaq u leeyihiin taas ayaa ahayd arrinta riixa si aniga laakiinse waxaan soo arkay oo maanta halkan ka sheegi doonaa waa hore 2020kii ayaan tagay magaalada Abu Dhabi wadankaas markaas shaqaan u tagay waa la yimiday imanka sheegi maayo meesha dadka yimiday waxa la yiri waxaanu doonaynaa dawladda Djibouti inaan xilfaha u qaadno marka ma oga aabahay inuu Djibouti ka shaqayn jiray Soomaal garay marka waanu qasdo waxaan ku leeyahay maxaad u sheeganaysiin dadkaasi waa dad masaakiin ah marka dadkii hanu dhisanay iyo sidoo u doonana inaan uga shaqaysiinayno uga shaqaysano ayaa la nargar mariyay bay yiraahdeen waxaan ku yiri bal ka warrama hadii cid kale intay Dubai timaado dadkiina hay la wareegto innakana dibadda ina dhigto way naxeen markaas Soomaad garan taas soo dhaaf talabaad wadankeena waxa ka socday iyo shaqada halkan xarun bay ku lahaayeen ciidan oo iyagu maamushaan madaxweynihii farmaajo ayaa ka eriyay Soomaaliya marka wax qorshahoodu waxa weeye lacag waxoogaa lacag la helay oo batroola kibirkii wuxuu gaaray markaasi inay wadamo kale oo sida dadka shaqaalaha wadanka joogeen xaq lahayn inay wadamada intay tagaan dadkoogii hay xaqbeel ku sameeyaan Libya ayaa halkan talida oo sida hayna ka doonayaan inay noo kala gooyaan hay laba qaybood qayb la safteen soo dhaaftaasi Suudaan baynu ognahay maanta qoladan RSF la dhahaa bil may sii socdeen hadduna kharash ku socon iyo hub ku socon marka waxa kaloo sii saari karaa waxa weeyaan in wadamo kale oo Afrikaana ayay maalgashi ku samaysanayaan Tanzania ayaa ka mid ah meesha xoolaha duurgalka lagu xanaaneeyo aad u qurux badan ee Serengeti la dhaho ayay doonayaan maalgashi ku samaystaan waxa laga xaaqayaa dhulkaasi dadkii Maasaiga ahaa jad bil jad kumaankum sagdeganaaba laga xaaqayaa Soomaad garan waxaan soo ogaaday wadan kale oo koonfurta Afrika South Africa Southern Africa ku yaala laba arrimood baan isku hadalnaa South Africa iyo Southern Africa Soomaad koonfur Afrika loona wadankii baa la moodaya koonfurta Afrika oo dhan waa Southern Africa waana tiraha wadanka marka qaybta Afrika koonfurta hawlaha kale ay ka wadaan ayaan soo arkay marka waxay igu dhalatay inaan dood ka dhexdhaliyo baarlamaanka Afrika oo marka dambana soo gaadha Addis Ababa AU soo gaadha midowga Afrika soo gaadha oo oranaysa dadkan waa in la xisaabtama anigu ma lihi dadkaasi halla cunaqabateeyo halla takooro waxa weeyaan halla xisaabtamo xisaabna ceeb maaha